habeennimadii xalay ka dhacay magaalada Berbera mashaqo ay ku geeriyootay Allah u naxariistay gabadh lagu magacaabi jiray Xamda halka uu ku dhaawacmayna Saacad Maxamed Faarax Qabiile oo ah wiil u dhalay xildhibaan Maxamed Faarax Qabiile oo ka tirsan xildhibaanada aqalka golaha wakiilada Soomaaliland kadib markii wiilka uu dhalay xildhibaan Maxamed Faarax Qabiile ula kulmay ninkii dhawaan magaalada Hargeysa ku rasaasay aabihii xildhibaan Maxamed Faarax Qabiile waxaana wiilkan u helinayay hablo u dhalay xildhibaan Maxamed Faarax Qabiile iyagoo weeraray ninkaasi waxay gabi ahaanba ka burburiyeen gaarigii uu watay iyadoo halkaasi uu ninkaasi rasaasay xildhibaanka uu cirka rasaas u riday si uu naftiisa ula cararo waxyar kadib waxa goobta soo gaaray laba kamid ah ciidanka bilayska magaalada Berbera iyagu ilaalinayay meel u dhow meesha ay mashaqadu ka dhacday iyagoona rasaasay wiilkan u dhalay xildhibaan Maxamed Faarax Qabiile isla markaana ay rasaastii ka hadashay kalida agteeda iyadoona ka dhex baxday kuna dhacday Allah u naxariistay marxuumad Xamda ilaa iyo hadda waxay bulshada reer Berberi ay u hanqaltaagaysaa wax ka ogaanshaha arintani iyadoona meydkii iyo dhaawiciiba ay yaalaan isbitaalka guud ee magaalada Berbera Khalid Xasan Nuur telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV magaalada Berbera